maalmaha soo aadan hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye wuxuu ku dhawaaqi doonaa liiska xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee taala galmudug 8 xubnood ayaa lagu dooran doonaa magaalada Dhuusamareeb tartanka kuraastan badi waa culus yihiin dadka kuraastan raadinaya ayaa badi la yaqaanaa dhinacyada ay la jiraan ama ay cod ka geyn doonaan waxaan kor istaagaynaa 4 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee taala galmudug 2 ka mid ah kuraasta aan ka hadlayno waxaa laga leeyahay degmada Ceelbuur waxaa 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay mataanaha siyaasadda Cabdi Axmed Dhuxul oo dhagdheer iyo Yuusuf Geelowgaas oo loo garan og yahay Dhageegeele dhagdheer waxa uu baarlamaanka Soomaaliya ku biiray 2000 halka uu Dhageegeele baarlamaanka ku biiray 2004 muddo 16 sano ka badan ay isgarab fadhiyeen labada nin balse sanadkan waxaa la filayaa in labada aqal kala aadi doonaan Senator Yuusuf Geelowgaas ayaa go'aansaday inuu ka baxo aqalka sare ee dalka wuxuu aadi doonaa aqalka hoose waxa kaloo isbedeli doona jufadii kursigaasi haysatay 4 sano ee la soo dhaafay hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa haysta kala doorashada 2 ka mid ah jufooyinka beesha kursigaasi iska leh Yuusuf Geelowgaas waxa uu qaadan doonaa kursiga Hob 26 oo ay 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhisay xildhibaan Ikraan Aadan Absuge dhinaca Senator dhagdheer waa mid ka mid ah labada xubnood ee la hadda la hubo inay haystaan rajo soo laabasho ah oo ka badan 80% marka la eego xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya galmudug kursigan oo ay raadinayaan xubno ay ka mid yihiin Sheekh Yuusuf Cali Caynte iyo Jahweyn oo mar ahaan jira wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya waxa uu xiran yahay dhagdheer xogtii ugu dambeysay waa inaan xubnahaasi lala qori doonin dhagdheer hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye marka la eego xilliga la joogo saaxiibtinimada wax wada yeelashada iyo waxa la isla soo maray ma jiro qof uu dhagdheer ku bedelan karo oo ka soo jeeda reerka kursigaasi iska leh sida awgeed dhagdheer waa mid ka mid ah sanatarada la hubo inay ka soo bixi doonaan galmudug haddii uu dhagdheer soo qaato kursigan codkaasi waxa iska leh Xasan Cali Khayre sanatarka labaad ee galmudug laga soo doorto ee ka bixi doona golaha sanadkan waa Cabdiwaahid Cilmi Goonjeex kursigan waxa laga leeyahay degmada Caabudwaaq Goonjeex waxa uu aadayaa sida la xaqiijiyay aqalka hoose ee baarlamaanka kursigan waxa lagu xalin doonaa muran beeleed oo 4 sano ee la soo dhaafay ka taagnaa kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire booska uu baneenayo Goonjeex ee aqalka sare waxa macquul ah in la geeyo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ama qof ka soo jeeda reerkii kursiga ku haystay 4 sano ee la soo dhaafay oo ah qolada uu ka soo jeedo hogaamiye ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid kursigan waxa raadinayay dad badan haddii la soo siiyo xubnahaas oo ay ku jirto qof dumar ah oo ay Cali Ciid ilmaadeere yihiin waxa codkaasi xisaabsan doona Farmaajo laakiin haddii uu soo qaato kursiga Cabdiweli Garyare oo isna raadinaya codkaas waxa leh Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kursigan waxa tala badan ku leh hogaamiye ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid iyo madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga afraad ee sheekadeena waxa ku fadhiya Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waa sida dhagdheer waa sanatarka labaad ee la hadda haysta rajo ka badan 80% inuu kursigiisa ku soo laabto xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa inaan xaaf la qori doonin si uu la tartamo Cabdi Qaybdiid kursigaas haddii Cabdi Qaybdiid la soo siiyo codkiisa waxa leh Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 sanatar ayaa laba ka bixi doonta xubnihii galmudug ku metelaya aqalka sare 4 sano ee la soo dhaafay labana kuraastooda ayaa loo xiri doonaa xilli la filayo in maalmaha soo socda la shaaciyo liiska xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee ka imaanaya galmudug maxay kula tahay